socdaal 1 Agoosto ma aadaysaa oo ma ka qayb qaadanaysaa dabaaldega 1 Agoosto arrinkaas ayuu wuxuu ugu noqday wadna qalad kaasoo ah mid aniga aan ka seexan waay gurigeyga aan ka jiifan waay wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walbo aad ka joogtaan iyo waqti walbo ay idin tahay oo wacan halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa channelkii ummadda Soomaaliyeed ee sariicaad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh waad ku mahadsantahay ama ku mahadsantihiin la joogiina garab istaagiina dhinac muuqashadiina iyo dhiirigelintiina intaba fadlan aan ku xasuusiyo waa xasuusin ma ahan arrin kale hadii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysa aad soo booqato subscribe saarkan baleelkana furo si aad mar walba u hesho muuqaaladii ugu dambeeyaan soo galina hadii aad hore nooga mid ahaydna aad baad ugu mahadsantahay kamid ahaanshiyaga maanta waxaan idin hayaa oo miiska iyo maanka muruqa iyo maskaxdaba aan saaran doonaa barnaamij run ahaantii aad xiisa geliyay laakiin ay dadka qaar si qaldan u dhigeen oo aan doonayo in aan wixii fikir ah ama afkaar aan ka qabo aan idin la wadaago idinkana aad nala wadaagtaan si aynu u eegno wixii sax ah ama wixii qalad ah waxaa jirtay in ay maalinta beritoole ay ku beegan tahay maalintii la abaabulay ama la aasay ama dhidabada loo aasay Puntland waxaanu leenahay guuleysta oo sanadkan sanadkiisa ama sanad guurada dambe waxaad ku gaartaan bashbash iyo barwaaqo iyo horumar wacan waana sababta aan mar walba u iraahdo Soomaalinimada mar walba ha waarto oo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan farxad iyo raynraan ku noolaada walajeedka dhabta ah aan u soo qaatay muuqaalkan ama aan ugu talagalay ayaan markan gudaha u gali doonaa waxaa jirtay fanaaniin badan ayaa ku sugan oo waxaa jirtay in ay hadiyada aad u qurux badan hawada ay u marinayeen waxaana kamid ah Sharma Boy iyo Maslax Mideeye oo kaga soo aftaxay maalintii laakiin waxaa ka sii horeysay hees uu qaaday fanaanka aad wada taqaanaan ee socdaal dadka qaar waxay suurtagal ah in ay isweydiiyaan ay yiraahdaan muxuu u soo hadal qaadaya socdaal maadaama uusan dadka qaar aysan aaminsanayn in uu fanaan yahay laakiin mar walba anigu waan idin sheegaa qof walba oo Soomaaliyeed oo han iyo himilo leh waxaan jeclahay in aan iska garab istaagno si aynu mar walba u gaarno sababtoo ah fanaaniin waxa jirto aanan adduunkan joogto oo aanan la oran kareynin fanaan oo haddana markii ay aad eegtid dalkoogii inta ay ku sugan yihiin ku leh taageerayaal aad u fara badan oo waxa kamid ah fanaanka aad u wada taqaanaan Dooli oo runtii aanan wax cod ah aanan lahayn haddana wadankiisa markii aad aragto si xoog ah ayaa looga taageeraa sababtoo ah waxa la doonayaa in hanka iyo himilada uu leeyahay loo rumeeyo si uu u dareemin ama u dareemo in uu leeyahay dal garab istaagayo xumaan iyo samaan intaba waxaa dhacday in lagu cazumay oo cazumad loo soo diray socdaal oo runtii maalmahan dambe baraha bulshada iyo social media intiisa badan aad u qabsaday laakiin waa uu ka cudur daartay dadka qaarna qof walba si ayay u aragtay oo arrinkiisa dhinac ayay u dhigeen balse waxaan jeclaan lahaa in aan hal iyo laba qaybta dambe aan ka niraahno laakiin isaga afkiisa aan ka xugmino miyuu tagayaa mise ma tagayo bal daawasho wacan taageerayaasheedan ana inaan u sheego inaan iimaan karin Garowe oo aan ka qayb qaadan karin munaasabada Garowe sababtoo ah waxa aniga heesto ani ahaan socdaal ahaan arrimo ay igu heesto macna xaalada ajraan oo aniga heestaan aan reeyay halka inaan ka sheego waan imaanaya Garowe waan imaanaya Boosaaso waan imaanaya Kalkacyo waan imaanaya Qardho waan imaanaya dhul Puntland oo idin oo degto dhan imaanaya waa tagaya 100% laakiin sorry afwan ka xumaa 100% ma imaan karo 1 Agoosto ma imaan karo waad soo daawateen oo fanaanka waa uu ka cudur daartay waxa uuna taageerayaashiisa uga cudur daartay in uusan imaan kareenin haddaba dadka qaar ayaa meel la aaday ama dhan kale u kala qaaday bal waxaan doonaynaa maxay tahay sababta uu u tagi waayay arrinkaasi ayaan ka jawaabi doonaa hal iyo laba wixii Ilaahay naga karasiina aan ka dhihi doonaa dadka qaar waxa ay sheegeen in uu fanaanka uu u tagi waayay meesha maadaama ay laba lajan oo ka waaweyn ay ku jiraan ama ay joogaan in uu intaasi u baqday taasi darteedna ay tahay sababta uu u tagi waayay laakiin waxaan leeyahay sababtaasi waa ay ka duwan tahay oo isku mehniyad ma aha sababta uu u tagi waayana laba arrin ayay u badan tahay oo waxaan doonayaa in aan idin kala qaado arrinka ugu horeeya bal aan ku hormaro arrinka koowaad waxa uu yahay fanaanka waxa ku jiro safar
run ahaantii loo diyaariyo oo uu Yurub ku tagayo waxaa jirta dad Soomaaliyeed amaba dad dhiiragelin weyn doonaya in ay u sameeyaan si fanaanka himiladiisa iyo hangiisa oo uga guulgaaro waxaana kamid ah run ahaantii Daahir Calasow oo garab buuxda u fidiyay kuna taageeraya in uu tago Yurub si uu uga u arko in dadka ay u heelan yihiin waana arin runtii aad u fiican arinka labaad oo u tagi karina waxa ay tahay maadaama uu safaradaasi ay ku jiraan way ku adag tahay in uu laba qof isku qaybiyo sababtoo ah waxa aad ogtiin hadii qofka uu safar yahay in uu iska hoolo badan yahay hadii uu waqtigiisa xagga tagi lahaa ama uu ku qaato waxa suurtagal ahaan lahayd in uu waayin lahaa amaba aanan heli lahayn waqtiga uu ku bixi lahaa dadyowga qaar ee negative-ka ah ayaa waxa ay sheegeen in uu Daahir Calasow u diiday in uu tagaa Puntland taasina waa been iyo barabagaada ay dadka ka baafinayaan ama ay ka faafinayaan sababtoo oo ah Daahir Calasow Puntland oo dhan ismay hayn ee dadka qaar ayay ishayeen hadii la isku fahmi waayo afkaartana run ahaantii waa la kala leexan karaa laakiin ma aha mid uu qaban nacayb Puntland oo dhan dadkan waxa qurux badan in aanan dhanka negative-ka mar walba aanan wax ka fiirin ee dhanka positive-ka aan wax ka fiirino runtii waxaan mar iyo laba iyo saddex ba idin leeyahay Soomaaliyeed fanaaniintiina dadkiina caanka ah ama dadka himilada leh ee hankooga oo sareeyo waxaan jeclaan lahaa in aad mar walba noqotiin kuwa garab istaagi kara kuwa mar walba jecel in ay fanaaniinteeda ama dadkooda caanka ah in ay garab istaagaan hadii laba iskugu dirno ama aan meel aanan wax oolin ka soo qaadno oo aan isku dayno in aan wax ka abuurna ogow wax walbo aad samaysaa ceeb iyo wanaag iyo sharaf dhac hadii ay mid walba wixii ka soo laabtaa in aad adiguna qayb ka yeelan doontid waxaana mar walba aan rajaynayaa amaba aan jeclahay in ay dadka maskaxdooda hal meel u wada shaqeyso horta ma dhici karayso oo sida Ilaahay ugu tala galay ay noqonaysaa laakiin waxa qurux badan mar walba in aan noqonaa kuwa wanaag iyo samaha ka taliyo intooda badan si noogu xasuusto ama wanaageena loo xasuusto ama caalamka intiisa kale aan ka daba gaarno aad baa noogala fogaaday aad bay nooga tageen maanta waxaad moodaa xogaa in aan wax soo fahmeyn waxaan rajaynayaa mar walba in aan ahaan doono dad sidaasi isku ah oo isgarab haysto mar labaad ayaan leeyahay Puntland asaaskiin waxaan idin leeyahay hambalyo Soomaaliya idinkana waxaan rajaynayaa markii aan qabiil iyo wixiisa xagga iska dhigno in aan si niyad isku wada hambalyan doono aad ismuujin doontaan reer Sariicaad ayaa rajaynayaa Puntland walaalaheen waxaan leeyahay mar kale iyo mar kale guuleysta abidkiin oo noqda kuwa sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ku gaaro idinna waxa rajaynayaa reer Sariicaad in aad soo dhiiban doontaan afkaartiina fiidiyogaana like badan dhag kaga siiya si uu u gaaro dad badan oo walaalaheen ah kuna farxi doona waana rajaynayaa in anagana beritoolisaas ay noogu hambalyan doonaan aad baad u mahadsantihiin intaan muuqaalkani mid la mid ah ama ka wanaagsan aan ku kulmi doonano waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillah sarag dambe oo xiiso leh